dhinaca hadalka qowlka dadku ku sheekaystaan oo ay aad muhiim u ah sababtoo ah hadalku qofka ayuu sawiraa si uu fakariyo kuu sheegaya danta uu leeyahay buu kuu sawiraya waa inaad qofka si fiican markaa la hadlaysaa maskaxdaada waa inaad ay la jirtaa hadalkaaga oo aad fahamsan tahay meeshu hadalka u wado danta uu leeyahay halkaasa kala soo bixi kartaa waxaad fahmi kartaa marka ninka dan guur leh iyo ninkaan lama fahmi kartaa waxaa kaloo jira erayo aad iyo aad u culus oo loogu talagalay dadka isqaba inay isticmaalaan oo dhalinyaradu aad u isticmaasho dadka xaaska iyo isu ah ninkii naagta isu ah erayo ay iyagu gaar u ah ma garanaysa oo waxaa jira dad aan sheeko wadaag ahayn inay isticmaalayaan waxaa loo baahan yahay marka qowlka qofkaanu ku leeyahay asoonku baran oo jacaylka ah oo weliba jacaylka maaragtay hadallada jilicsan ah oo qalbiga taabanaya ka digtoonaada maahan sax maaha liannahu qof aan ku baran ku jeclaan erayo aada u qabo oo jilicsan oo qalbi qaada hadduu adig kugu yidhaahdo oo kugu soo jiidanayo hadde waa arrin been ah wey sababtoo heer halkaa mabuu gaarinba heer aad qalbi qaadid heer uu erayada aadka u jilicsan dadka khaaska soo isticmaalo oo adig kuu isticmaalo maba uusan gaarinba waxaa loo baahan inaad si fiican erayada qaarkood loo taxadaro dhalintuna erayada ay soo isticmaalayaan ee aadka u jilicsan ee dadka qalbiyadooda taabanaya inay yareeyaan baa la rabaa ilaa qofka ay fahmaan qofkii ku habboona inuu yahay erayada inta la sheekaysanayo erayaa ka dhasha labada qof laga yaabo inay ku kala tagaan erayaa ka dhasha labada qof laga yaabo inay aada isu soo jiidaan nin aan qaraabanahay ayaa wuxuu iga sheekeeyey maalin annagoo wada soconna derisna aan ahayn ayaa ina naga hortimid gabar inana naga hortimid inantii baan salaano wayna dhaaftay inanta asna anna waan garanay asna wuu garanay masaajidkaan u soconno guri ku dhegan bay degan yihiin wuu ila sheergareeyey hadalkii wuxuu yidhi inantaan ma taqaano haabaan ku idhi waa inanta reerka halkaa degan oo masaajidkaa degan wey waxaynu inantaan muddaan sheekaysanaynay guur baan ka doonayey way iga aqbashay arrintiina meel wanaagsan bay noo taallay maalin labaad anigoo masaajidka u socda oo doonaya masaajidka inaan salaad ku tukada maqrib ayaan waxaan arkay buu yidhi iyadoo hooyadeed hadal aada u xun ku leh waan u qaadan kari waayo waan istaago wuxuu yidhi si fiican baan isha u geliyey waa iyada waxay la hadlaysana waa hooyadeed erayo aada u adago waarid aan la oran karin bayna hooyadeed leedahay waa ka gudbay waxaan goostay buu xiriirkii gabadhaa naga dhexeeyey inaan joojiyo waan ku soo celiyey waxaan ku yidhi qofka hadduu hadal xun yidhaahdo waxbaa ka imaan kara laakiin maxaa keenay xiriirka joojisid wuxuu igu yidhi gabadha hooyadeed sidaa ula hadlaysa oo maaragtay maanta iyadoo hooyadii dhashay saa ula hadlaysa gabadha iyadoo dhashayna saasay iyadoo hadli doontaa gabadha iyadoo ay dhashay iyadana saasay ula hadlaysaa sababtoo ah waalidku ciqaabta adiga aad ku samayso waalidka ilmaha kugu samaynaya ninkaas wuxuu fahmay caasi waalidnimo gabadha inay ku jirto gabadhaas inay caasi waalid tahay oo erayo aan waalidku xaq u lahayn ay kula hadashay buu u joojiyey xiriirka iyada uu iyada isaga ka dhexeeyey dalaalkaa ka faham meesha uu ka qaatay cabsida gashana waxay noqotay hadduu gabadhaa guursado oo carruur ay u dhasho in carruurta iyada ay u dhashana saasoo kale iyada berita ula hadli doonaa sababta cuqubada waalidka ka timid baa meesha ku jirta marka qisadaasu hadalka iyo macnaha uu leeyahay kutusaysaa iyo in uu keeni karo go-aan deg deg ah oo joojin kara xiriirka kaala dhexeeya qofkaa doonaysa inaad guursatid sidoo kale axsaan badan iyo wanaag badan oo qofka hadalladiisa kaaga muuqda waxay keeni karaan inuu ku soo jiito maxaan ku yidhahdaa fahamtid qofka wanaaggiisii maxaan ku yidhahdaa aada isugu soo dhawaataan dadka waxaa jira marka dadaan sheekaysan baa jira oo iyagoo aan sheekaysan la isa siiyo dhaqankeennii bayna ka timid hore welina magaalooyinku waa ka jira guurarkaas inta badan waxaa loo baahanya si fiican in laysaga fahmo oo labada qof oo la siinaya la istuso ay wada hadlaan sheekaystaan isbartaan qofba qof kale ka jirkiisa fahmo dabeecaddiisa fahmo maxaan ku yidhaha habdhaqankiisa fahmaa loo baahanya laakiin iyada oo ehla yahay
haddii dad caruura la isku daro ama dad kaloo maxaan ku yidhaahdaa haba weynaadeen dhaliyo ah ama walaalaha la isku daro berrina guurkaasi xumaado ehla kula fogaanayo. gabadha waxay iga sheekaysay jaamacad dhiganaysay in lagu daray wiil ay qaraabo dhow yihiin oo dibadda jira aabaheed u yeeray una sheegay aqbashayna waan u hambaliyey aad baan ugu hambaliyey hambaliyeen kadibna waxaan ku yiri wiilka ma is aragteen waxay igu tiri mar buu yimid wax yar oo aan 3 bir 4 bir dhameyn baan is aragnay ka bacdina waa noqday muuqaalkii si fiican baan u garanayaa bitir talansiya waxaan ku yiri inkastoo ninka oo lagu siiyey waxay ku wanaagsanaan lahayd in aad sii fahamtid oo aad maaragtay baratid hadduusan kula joogin xataa aadad u dirtid meesha uu joogo ninka dhaqankiisa dabeecadiisa balwadiisa aad fahamtid. talaas gabadhii waa qaadatay runtii aad u qaadatay daday qaraabihiin bay u dirtay waxay tii ninkaas waa ninka la isiin sugayo markaan jaamacadda dhamaysto waxaan doonayaa inaad bal ninka ii soo eegtaan hadduu balwad leeyahay adigu dad bay dirsatay waxaa loo soo gudbiyey in ninkaasu nin wanaagsan yahay nin bashaash yahay nin shaqaysta yahay laakiin cillad uu leeyahay inuu daroogo isticmaalo daroogadu isticmaalana tahay mid cirbada ah oo la isku duro. arrintan markii loo soo sheegay ay aabaheed u gudbisay waxay aaba arrintaas jirta ninka ay siisay waa walaalkay waa qaraabaan nahay dhow laakiin cilladaas jirta adiguna arrintaas soo ogow haddaad doonayso anigu inaan berrito arrintaas adiguna aan ku guurbeelo oo gabarnimadeedu ku waayo kuna sumcad beelana hadii ku talagal haddaad doonayna arrintaas baar talaadii waa aqbalay waa qaadanaya ninka siisay laakiin arrintaas aan soo sheegay la baar oday taladii asna waa qaatay si waa baaray arrintii waa soo baxday asagoo waxba problem sheegin buu inta u tagay ninkii wiilka dhalay iyo wuxuu ku yiri gabadhii aan wiilkaaga siinay arrintii waa ka baxday waana diiday sidaa ogow kamuusan hadlinin problemkii iyo dhibaatadii loo soo sheegay iyo dhinaca balwada oday kumuusan dhihin wiilkaagu waa xun yahay daroogo cunaana kumuusan dhihin laakiin kaliya wuxuu u sheegay in gabadhii heshiiskii ka baxday markii xaqiijiyeen kadib in wiilkaas balwad leeyahay. marka waxaa la rabaa inta processkan ama hawshan haasaawuhu uu socdo go'aamo badan baa soo baxa go'aamadaas waxaa qaata dadka wada hadlaya kuwa aan soo sheegay baa ka mid ah kuwa kaloo ka sii badan baa dhaca laakiin waxaa loo baahan yahay waxaas waxay ku soo baxaan inta sheekadu socoto laakiin markaad sheekada bilaabato ama haasaawaha gabadha ama wiilka ay bilowdaan haddii si indhala-aana loo galo fudayd ka buuxo waa ku arko waa jirtay waa ku arko waa ku liqada hadda la isku wada lagu socdo dee markii la deganayo oo la kharash garoobin la kala tegaya runtaa soo baxaysa. marka in haasaawaha la hagaajiyo waxay ka mid tahay hababka lagu gaaro qoys baraaraan. annaga waxaan ka hadlaynaa habka dhismaha qoys baraaraan. qoys baraaraan markaad doonaysa inaad heshid waa inaad hagaajisaa haasaawahaaga waa inaad qowl iyo ficil ba fahamtaa qofka aad la sheekaysanayso meesha aad kula sheekaysanaysa waa inaad hagaajisaa si aad u hesho qof wanaagsan. insha allahu tacaala waxaan filayaa in qodobka aad loo fahmay annagoo casharadeenna dambe insha allah kusoo qaadan doono qodobada kaleeto oo ay tahay in la helo qoys baraaraah si loo qabto. waa cismaan qoys bilo oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.